social media wuxuu baabi'inayaa xiriirka sida aku naqaane gabi ahaan adduunka dhan aa dhamaarabo dagaalka saddexaad loo socdaa korkeen waxaa marooya madaafiic nuclear hor iyo gadaal at the same time dagaal ba anoo xasuuqiisa ayarena wuxuu ka socdaa social media kan Soomaalida iyo kan adduunkaba dagaalkaas oo u dhaxeeyo nimanka iyo naagaha guriye burburaayo qalbiye jabay dad isnacay dad kala tagay isdagaalay ilmo isku haysta isdhibaateenaya kalsooni aan meesha oolin sababo badan anaga maxaa naga gal markii xalqada maanta waxa uga hadlaynaa mowduuca isleeyahay waa xilliga ugu haboona ee tahay inaan soo hadal qaadno mowduucan jeclaalaha in la soo hadal qaado markii aan baranayo jacayl waxa uu yahay xiriir caafimaad qaba iyo qaabka lagu heli karaba oo cabsi badan aan ka qabay soo maanta waxa ka hadlaynaa xiriirada jacaylka cabsida ku hareeraysan social media iyo sababaha dadka qaarkood ay aad uga baqaan xiriirkooda inuu dhamaado inta uusan bilaaban ka hor adduunyada waxa ku noolnahay jacaylka uusan ahayn kaliya wax qalbiga ka soo go'a dadka qaarkood jacaylku wuxuu u yahay inay content ka helaan ama ay ka sameeyaan inay sumcad ama magac ka helaan qaarkood wuxuu u yahay ganacsi waqtiga hadda la taagan yahay dadka qaarkood xiriirku waxay u galaanba inay qof ku soo caanbaxaan inay mansab ku helaan inay magac ka sameeyaan intaas kaliya ma idin kaga sheekeynay dhammaan social media ku aragteen TikTok waa joogtiin Snapka Facebooka meel walba ka horeeyaan ummaddan waxa arkaysa xiriirkooda ku dhisan yahay kaliya inay sameeyaan trends kala maanaha oo cute ka ah inay isla socdaan faraant isku galiyaan muuqaal isla sameeyaan cabitaan isla cabaan kan isla sameeyaan isla heesaan iska dawareegaan casho isku sameeyaan proposal faraant galis break up kooda ku soo wargeliyaan isbuuc ku xig isku soo laabtaan laakiin wuxuu dhan meesha yeelan adin waxa isweydiinaysaa jacaylka la sheegay oo dhan halahan leemiya in la isku kala kacsado views la isku raadsado maya jacaylka intaas oo ka badan yahay diinteena saa ka baranay jacaylka intaas oo ka qato dheer yahay waa wax muqadas ah xiriirkana waa wax ka dhaxeeya dad israba ee ma ahan heshiis isku hayna laba qof oo kibir badan oo mid walba meel rabo it's a bond sidoo kale jacaylku waa tijaabo ilaahina abuurta quraankiisa wuxuu ku dhahay wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون marka ilaahina abuurtay wuxuu noo sameeyay in isla wala beesano oo israadsano isweheshano isgacalsano naxariis iyo jacaylna dhaxdhigay soo lamaanaha blueprintiga lagu talgalay inay ku dhaqmaan waa kan jacayl iyo naxariis ilaahi ma dhihin wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum drama ma dhihin waja'ala baynakum Instagram likes and views no waxa la isugu keen abuur in lamaano ku noqono jacaylka iyo naxariista ma ku jirto meesha aanami istustus iyo views radis iyo isgadgad laakiin hadda baraha bulshada wuxuu ku ciyaaraba jacaylka saa u arkeenay u fiirso markasta social media scroll asamaysid lamaana ka hor imaanay laba qof oo nolol ka dhaxayso oo jacaylka dhaxay xiriir wadaagayaan anana wax isleena xiriirka la sheegay kan waay intaan waay sawiro qurux badan Instagram in soo dhigo oo xeebta anigu joogna proposal yar oo yaab badan oo dadkana ay ka hadlaan maqaayad ku sameeyno muuqaal slow motion ah anagoo hees qad qaadeen laamiga mareyno vacation oo lamaana in la galo public apology in la dhamaanta dhan xaaskeyga ma meeshan ka raalgelinaya waxa ka raalgelinaya ninkeyga maadaama sa sameeyay hebelo wax kasto stage ah jilin meesha u dambeysay heer isdhaad waxa hor fadhiisatiina mal hotra iyo raahulkana laakiin marna ma aragno waxyaabaha jacaylka ka dhigaya jacaylka cafiska daacadnimada habeenkii xilligiisa dambe oo nolosha loogu sheekaysto si deep ah iyadan cidna aysan idin ogeyn in astaageertaan barbalimadiina joogtada ee xalintooda dadaalka ducooyinka isweheshashada وفهموسا isweheshashada intaas markii laga soo tago waxa yaabka ka dhamaha ma taqaana marka ogaatid dadka qaarkood xiriirka ma ugu jiraan jacayl dartiisa dadka qaarkood social media ugu aragtay lamaanaha contract ku jiraanbo qaarkood ganacsi u tahay lacag ka sameeyaan qaar wax u sameeyaan aanimo darteeda iyo kuwa waxa jiro qofkan uu kugu soo baxaa dartiisa la u raaco xiriirka dhan wuxuu ku saleysan yahay qofkan isku nuurayna bisle taas waxay tahay sababta ee badana xiriirada ugu aragtay social media ugu dhamaadaan dhamaad qaab daran maxay marka hore asaaska xiriirkaas jacayl ma ahaynbo foundation ku khaldamay okay xiriirku wuxuu yahay ka soo tag maxaa ugu cabsana qaarkeen marka first of all hadii xiriir inaad gashid ka baqaysid caadi way waxa la ilaahay ka cabso unkiisna ka cabso cabsida ka qabtay xiriirka valid way ma ahan wax ahabada ka keensatay waa wax jiro oo la fahmi karo laakiin please waxa hubisaa cabsidaas inaysan ku saleysnayn qofka la fashilkiisa marna xiriirka ugu cabsaneen sababtoo ah muuqaalo waxa ku aragto social media xanuun badan marna jacaylha u diidan sababtoo afuuri bishka waxa ku aragto qof aad taqaanid oo la qiyaanayo ha islihin jacaylka la sheegay dhan feeg waa maxay lamaanihi ugu jeclad Instagram ka kala hareen taas eeg sheekadoodu aad maxaa ka gali hadii xiriir ka cabsanaysid cabsidaas in noqoto way sababtoo ah diyaar mu u tahay xiriir sababtoo ah ma joogti space ku heli kartid jacayl ama ku bixi kartid si haboon sababtoo ah wali waxa ku jirta kabasho ama wali waxa raadinaysa adduunka maxaa ka tahay maxay waxyaabaha u baahan tahay waxyaabaha jecesha waxyaabaha aadan jecleen wali aad isbaranayo kuwaas adeeyihiin sababaha xiriirka ugu cabsanaysid
valid way wala fahmi karaa laakiin cabsidaadna inay ka dhalato dad islaameed social media hasi ku yihiin noloshooda maxay iska halayeen maxay isku sameeyeen experience-gooda muxuu yahay inay taas saameyso noloshaada iyo cabsi ay ka geliso jacaylkaaga taas aad cadaalad ma ku ahan kaaga daranta waxa ku nacma taqaana social media sanadii ugu dambeeyay gaar ahaan sanadkan haba ugu darnaade dagaalka meel u socdo iyo meel ka socdo aan la fahmaynin ay ka dhaxeeya Xaliimo iyo Faarax laba la dhahay keening ahay 9 telefonkiisa intuu gadgadiyaha wax kaliya ka hor imaanaya waxa muuqaal dhahayo naagaha qayana socoto waaye naag wax ma gasho naagaha waa dhagar badan yihiin naag lacag la u daran bro jecelna iska ilaali waliga naag ku kalsoonaanin Xaliimo xasid waaye ay heelay idin wax kaliya arkayso oo saaxiibadeen u soo diraan waxay yihiin Faarax iska ilaali nin kalsooni ma lahan aduusan dahab ku qubeyeen nin ma ahan naag loo karaaca Faarax jecel ma yaqaano nin qalbi jable ku dambeeyo hadda maxay haysana marka jiil dhan oo niman iyo naaga ah oo wax kalsooni lahaa isku qabin oo xiriirka markii lagu hala sii galayay xumaata ka filay mid walba wuxuu ku dhagan yahay jaceylkiisa iyo qalbigiisa cabsi darteeda labada qofood lamaanaha markay qaba ku jiraan iyo islaalis iyo waran ku taag iyo kan iska fiir iyo goormo ku dhibaateena jaceylka meel ku neefsad ma lahabe asxaabtaadana u fiirsa hadda tira ma laha inta ku dhahayso ani jaceyl waa ka aamin bah saaxiibo jaceyl xanuun ku dhamaana adidan waxa isweydiiyay marka adduun noocay ah abuurnaad adduun loo arkay jaceylkii koriimaha ahay nolosha ahay cabsi halis laga baqayo diinteena meel inagu baraysa malaha inaan jaceyl ka quusano ama ka harno bal waxa ayna bartaaba qaabka u raadin lahayn marka jaceylka Allah nahay ana uga quusan lahayn waxayna baraysaa qaabka u ilaalin lahayn marka aan helno qaabkii lagu dhisi lahay guriyo beeskooda yahay ixtiraam iyo nabad I believe xadiisa jira rasuulka kaleey salaam oo dhahayo waxa idin kugu wanaagsan kan u wanaagsan reerkiisa taas waxa kala dhaxbaxeena jaceylka inuusan ahayn inaa heshid qof ee waa inaa noqotid qof aad u naxariista kalsooni badan haysta xasiloon sidoo kale aad u qadarinaya waxa Ilaahay uu ka dhigay muqaddaska oo ah jaceylka waxa yaab leh markasta anaga focuskeena wuxuu saaran yahay inaan helno qofkii saxda ahay meeshana laga rabo juhdigeena 90% inaan gelino inaan noqono qofkii saxda ahay markasta u fiirso dadka waxa ka dhex raadinaa qualities gaar ah waa inaan dhahno qofkan saa u ekaasan u dhaqmaasan u yaala waxa uu leeyahay kaas haysta kan haysta markii qofka aan helno oo wixii dhan haysto waxa arkeena hadana anaga inaan diyaarsaneyn laakiin qofka araadiheen wixii dhan lahaa way jooga meeshan diyaar waay laakiin anaga qofka ma ku haboonin anaga qofka saxda ma u nihin ka waran qof walba juhdigiisa galiya marka waxa uu raadinaa inuu asaga noqdo marka hore qof naxariis badan artaamaho noqo adi qof qurux badan artaamaho isqurxi qof caraf badan iscarfi qof caate qof cayil iscayili adi waxa raadinaysa iska dhig horta adiga waxa artaamaho qof dhisan noloshiisa isku toosan tahay caafimaad qabo meel kaste oo lacag leh wax kaste wixii noqo maalinka aragtid qofka saxda ah oo kala mid ah wax ahaysid wax la mid ah haysto isku darsada barakallah laakiin sagaashanka meeshan daadsanaha horumar marabi shaqo marabi wax qabsama waxa suuga kaliya qofka saxda ah imaato naag dheer oo dhuuban oo baysa qabto baalalo ila buubta raba hay ugu fale qofka saxda ah raadinaysid adi iska dhaxraadi marka hore marka iska heshid kadib adduunka ka raadi isku biir markaas haddii qof walba uu focuska meesha saaro uu iska dhigo qofka saxda ahay wuxuu helayaa qofka saxda ah shimirba shimirkiisa la duulaa and you stick together hooyo soo wacday rabbigana abuurta dartiisana mid asla xasuusano nolosha ma ahan film 3 saac soconaayo ama TikTok 7 second ah jacaylka wax run ah way ma ahan aesthetic ma ahan biliq iyo nashnash waa sacrifice waa dulqaad waa dhabar adeeg waa inaad dooratid qof haddana mar kale aad dooratid iyo mar kale xitaa marka aysan fududeen xitaa qofka markuu arka dhankaaga ugu xun welina uu go'aansado inuu kula joogo so please internetka ha u ogolaanay inuu ka xoogo wax riil ah algoritmka iyo social media ha u ogolaanay inay ka dhaadhiciyaan jacaylka ugu dhintay ha uga baqin inaad dhistid nolol run ah oo rasmi ah sababtoo ah qof kale ku fashilmay inuu dhiso noloshaas haddii noloshaas inaad gashidna ka baqaysid uga baq sababaha saxda ah not because dadka online ku aragta xaalad ku xuntay ee sababta uga baqaysid waxay tahay inaad leedahay karti kugu filan oo ku soo istaagi karta aad ahtid ma ka baxsan kari noloshan diyaar ma u ihi jacayl ma qaadan kari mana dhiibi kari waqtigeeda ma la joogo taas waa la fahmi karaa waa koriimo waa xikmad lisdheer yahay laakiin marka aad diyaar u noqotid noloshaas inaad gashid please wadnahaaga dhan ku jeclaaw jacayl buuxa bixi si aad u heshid jacayl buuxa haddii aad dhahdid laakiin waa is ilaalinaa waa li dhibaateena waa baqa qofka kalena qabadaas ku jira meelna ma gaarisiin laakiin adiga daacadnimadaada ha gaarsiisanaata heer qofkaas qalbigaaga u furtid kalfurnaan aad samaysid qofku jeclaa la jeclaa soma marna yasan dhicin jacaylkaaga inaad kala reebatid kaaga daranta qof aad jecesha inaad kala reebatid taas wax xun ah muhiim ma aha adduunka kala soo iskula dhaqmaayo adiga noqo qof naxariis leh qof dulqaad leh iyo tan ugu muhiimsan qof run ah meeshaas markay marayso gacmahaaga ii dhib waa ogahay adduunka cabsi waaye social media kasi cabsi badan laakiin intaadan dhimanin qofkaaga ka dhimanin please qof kale jacaylkiisa ku fashilmay ee kaaga ka fashilinin
adii iyo qofka noloshiisa ka dhaxaysa adinka ka dhaxaysa qofka adduunka ama jecelkaas ka baxsan kara malahan even aadam iyo hawa cilmi iyo hodan qays iyo hebelow waxaas oo kan baxsan karaan adii iyo qofkaaga adinka la isku sameeyay adinka isle please nolol kala ku bees gareeni tiina mid gaar ah waay mudugoon u tumanatiin ilaahay iskin qoyo waxa soo xasuustay isbarashada sameeyay ani adinku asnaqaana dadka ku cusub channelka la hadlaya magacayga Naasir waaye meeshan waxaan ugu soo gabagaboobay xalqadii saddexaad ee barnaamijkeeni ma ogid ilaa ogaatid waa taxane jimca kasta ku falanqeyno mowduuc aan maskaxdeeda ka guuxaya ama aad maskaxdaada jimcahan waxa miiska noo saarnaa jacaylka saxda ah iyo midka social media yaalo iyo sida baraha bulshada isaga horkeenayaan labada jinsi ee Ilaahay isku abuuray haddii aad xiisinaysid xalqooyinka hore iyo mowduucyada falanqeynay halkan ku dhufo sidoo kale dhamaadka muuqaalkan waxaa shaashada soo saari doona playlist oo dhameystiran halkaas kala socon kartaa mowduucyada soo socday waxyaabaha jeclaan lahayd in soo hadal qaadno please comment nagu dhaaf soo meedi xasuusinaya waa taqani dhamaantiina like share subscribe comment saaxiib la wadaag xalqadana meesha ku soo dhamaatay dhamaanteen waxaan rajeynayaa nolol qurux badan aniga iyo adinkaba inta muuqaalka aan soo xirinna waxaa rabaa inaan u faa'iideysto in hambaliyo inta ugu dira dhamaan Soomaali Maxamed meel kasta adduunka ka joogtiin 26 June ilaa 1 Luulyo toddobaadka xorriyadda waxaan rajeynayaa farxad ku qaadatiin meel kasta aad joogtiin tan iyo kan xiga bye bye cut it's over again